سجن العلا قصصا هنا أحد يرويها. الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها، قد عظمت فللأمجاد بانيها. ومن يسعى إلى الأمجاد بانيها، ومن يسعى إلى العليا بما فيها. asalaamu calaykum waraxmatullah. soo dhawaada saaxiibyaal, kuna soo dhawaada muuqaal cusub. insha allah hadduu eebbe inoo saamaxo waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa aragtiyooyin uu saynisku ama culammada saynisku ay xaqiijiyeen mar dhow, iyo xusidii uu alle ku xusay kitaabkiisa 14 qarni ka hor ama 1400 sano ka hor. waxaynu ognahay oo aan la soconnaa in alle weyn uu qur-aankiisa uu ku sheegay in wax welibaa uu ku koobay kitaabka dhexdii. waxaana hubaal ah in hadalka alle weyne uusan ahayn nusqaan, marnaba aysan dhici karin inuu nusqaan noqdo. wax welibaa oo ka muuqda dunida dusheeda, haddii ay ahaan lahayd nidaamka loo abuuray iyo nidaamka ay u shaqeeyaan, waxay ku xusan yihiin kitaabka dhexdii. aragtiyooyinka uu saynisku shaaca ka qaaday waxaa ka mid ah: caleemaha waxay marmarka qaar isku beddelaan ama ay noqdaan kuwo uu kalarkoodu yahay jaalle. dabcan maaha wax nagu cusub, wuxuuna sayniska mar aan dheereen ku fasiray inay sababaan dabeelaha ku dhaca caleemaha, kuwaas oo yareeya biyaha ku jira caleenta, midaas oo keenta in caleentu kalarkeedu beddelmo uuna noqdo jaalle. 1400 sano ka hor, alle weyn ayaa kitaabkiisa qur-aanka noogu sheegay: ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون. haddii aan soo dirno dabeyl oo ay arkaan doogii iyo wixii cagaarnaa ee uu roobku soo bixiyey oo jaallo noqday, waxay ahaanayaan intaa kadib kuwo markaa sii gaalooba. alle weyn ayaa kitaabkiisa qur-aanka noogu sheegay in dabeyluhu ay beddelaan kalarka caleemaha, waana arrin uu sayniska mar dhow xaqiijiyey. sida aynu wada ognahay, maskaxda bini'aadamku waxay leedahay qaybo badan, qayb welibaana shaqo u gaar ah ayay qabataa, sida qaybta xusuusta oo kale. midaas mid la mid ah, saynisku wuxuu mar dhow xaqiijiyey in bini'aadmigu uu adeegsado maskaxdiisa qaybta hore markuu been sheegayo. qaybtan hore ee maskaxda ayaa lagu magacaabaa prefrontal cortex. haddii uu qofku ka dhaawacan yahay qaybtan hore ee maskaxda, waxaa lagu tiriyaa inuusan awood u lahayn inuu been sheego, waana qaybta la adeegsado markii been la sheegayo. wuxuuna alle inoogu sheegay kitaabkiisa qur-aanka kariimka ah 14 qarni ka hor: كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ha ka joogsado oo ha ka haro addoonka uu salaada ka joojinayo, waa nebi muxamede. hadduusan ka harin waannu dhufanaynaa fooda. ناصية كاذبة خاطئة. foodaas oo beenley ah haddana gafaf badan. fooda ama afka hore ee madaxa ayuu alle weyne ku sheegay inay tahay mid beenley ah oo haddana gafaf badan. daawade, wuxuu eebbe weyne noo caddeeyey in fooda ama afka hore ee madaxa ay tahay qaybta uu qofka adeegsado markuu been sheegayo. sayniskuna mar dhow ayuu xaqiijiyey arrintan. alle weyne wuxuu qur-aankiisa ku sheegay: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. waannu soo dejinay birta ama xadiidka iyadoo ay ku dhex sugan tahay baas daran, waxtar iyo nafci ayayna u leedahay dadka. daawade, wuxuu eebbe weyne ku sheegay aayaddan in uu soo dejiyey birta iyadoo ay ku dhex sugan tahay baas daran, dadkana waxtar u leh. alle weyne wuxuu adeegsaday kelimadda wa anzalnaa oo ah waynu soo dejinay. maanta culammada saynisku waxayna leeyihiin in birta ama macdanta loo yaqaan iron in aanay asalkeedu ka soo jeedin dhulka ee ay ka timid meelo kale. weliba waxay sheegeen in qoraxda iyo meerayaasheeda in aan lagu abuurin macdanta birta, ee waxaa lagu abuuray bay yidhaahdeen meero ka weyn cadceedda, oo tamar aad u weyn bay u baahan tahay in la abuuro birta ama xadiidda. idan meel kale ayay nooga timid bay yidhaahdeen macdantan, halka uu eebbe weyne qur-aankiisa 1400 sano ka hor noogu sheegay: wa anzalna alxadiida
waannu soo dejinay birta. daawade alle muusan adeegsan kelimadda khalaqa oo ah abuurid, oo wuxuu adeegsaday kelimadda anzalnaa oo ah soo dejin, middaas oo noo caddaynaysa in macdanta ayronta ama birta aan lagu abuurin dunidan ee ay nooga timid meelo kale, sida uu alle kitaabkiisa noogu sheegay. sidoo kale daawade, waxaa xusid mudan in bartamaha dhulka ay ku jirto macdanta birta. sidoo kale haddii aynu aadno bartamaha qur-aanka kariimka, waxaa inoo soo bixaysa suuradda alxadiid oo la micno ah bir ama ayron. daawade, alla weyne kitaabkiisa ayuu wax walba noogu soo koobay, wax welibaana isaga ayaa nooga filan. qur-aanku waa kalaamka alle weyne kalaamkiisana ma ahan mid nusqaaman, marnaba dhici maysa inuu nusqaan noqdo. mucjisooyinka ku dhex suganna ma ahan kuwo aynu ku soo koobi karno muuqaalkan. intaas ayaynu ku joojinaynaa. wassalaamu calaykum waraxmatullah.